waa maalinteeni Maarso waa maalintaadi Maarso waa maalintii haweenka Soomaaliyeed loo asteeyay hayday maalintay gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha adduunka waxaan leeyahay horta gabdhaha adduunka hambalyo qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed hambalyo waa maalinteeni Maarso waa maalintaadi Maarso kulli way naga dhaxaysaa waxaan leeyahay hambalyo haweenka Soomaaliyeed haday hooyo yihiin iyo haday gabar yihiin hadda maanta waa wada aroos marka waxaan leeyahay sanad guuro wacan ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa saacadan saacadeeda waqtiga bishan bisheeda waqtigan waqtigiisa ilaahay inuu nabad nagu gaarsiiyo sama iyo sucaado insha Allah marka waxaan leeyahay maanta farxadeena lama soo koobi karo waxaan u wada joognaan u galo fadhinaa maalintii gabdhaha Soomaaliyeed sida runta ah waxay soo mareen dhibaatooyin badan waxay soo mareen waxaan ku leeyahay caqabado badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaan noogu ekeeyo 30 sano ayaan dhibaato ku soo dhex jirnay oon caruurta afka ku sidnay oon kor iyo bari u qaxaynay oo gabdhaheena waxaan ku leeyahay wadooyinka lagu kufsanayay oo gabdhaheena wadooyinka ku umulayeen waxaan ilaahay ka baryaa inay noogu ekaato 2020 insha Allah wixii ka dambeeyana aan u baxno farxad iyo waxaan ku leeyahay reyn annagu hadda waqtigeena waaba tagay saacadaheena waa dhow yihiin gabdhaha aan dhalnay ilaahay ka dhigo kuwa ku raaxaysta laakiin goormay raaxaysayaan waxay raaxaysayaan markii la siiyo xuquuqda ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay 30% madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsaynaa annagu hooyaan nahay wax badan ma aanan sheegan sida runta diinteena islaamka waxayna siisay konton waxaan nahay konton ley diyada iyo wax walbaba inaan konton ku qaadanay ahayd marka aan dhahayna 30% waxa ka wanaagsan inaan dhahno 50% oon ragaya annagu waa ka simannahay intaan ahaynin dhaxalka wax allaale waxay qabtaan aan qaban karnaa meel alla meeshay maraan waliba waxa dhici karta inaan ka wanaagsannahay haddii maanta ay doorashadu ku dhici weydo sida loo waxaan ku leeyahay qoray waxay naqahaysaa in gabdhuhu la wareegaan talada sababtoo gabar aan wadan aan gabdhihiisa horumarin ma horumaro gabdhaha Soomaaliyeed talada in loo dhiibo si ay waxaan ku leeyahay wadankooda uga fikiraan wallahi gabdhaha Soomaaliyeed intay guriga ka shaqeyso caruurteeda toosiso odageeda toosisay waxay u baxdaa danta guud say nadaafada uga shaqeyn lahayd say bilicda magaalada madaxda u soo saari lahayd siday waxaan ku leeyahay abniga uga shaqeyn lahayd siday uga shaqeyn lahayd waxaan ku leeyahay isku xirnaanta guud marka gabdhaha waxaan leeyahay talada waxa laga siiyo gabdhuhu miiska wada hadalka inay tagaan waay gabdhuhu meesha wax lagu qaybsaa inay tagaan waay ma ahan in la yiraahdo guddiga la magacaabaya waxa lagu diraa 2 gabdhood macquul ma waa in meel walbaba 50% aan ku lahaano waa in la ansixiyaa arintaas waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khayr Allah siiyo inay dhahaan gabdhaha Soomaaliyeed hadda 50 ma ahan hadafkeenu waa 30 in la siiyo noola ansixiyo si gabdhaheenu ugu raaxaystaan ilaa annaga waqtigeena waa tagay waxaan leeyahay intaas markaan uga baxo maalinta Maarso iyo dawladda guubaabinteeda magacaygu waa Leila Axmed Diiriye waxaan ka socdaa gobolka Banaadir 8 Maarso haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way isu hambalyeeyaan waa maalin farxad leh waa maalin la iscasuumo waa maalin maalmaha kale ka duwan 8 Maarso horumar oo kasta oo la qabanayana haween baa qabta ninka magaciisa baa meesha ku yaal laakiin markaad u fiirsato meel kasta oo wax laga qabanayo hoggaanku waa haween gogosha kuwa dhigaya waa haween marka haweenka aad arkaysaa 8 Maarso meel kasta ay joogaan way isu soo hambalyeeyaan maya 30% aan ku yeelano marba 130 xitaa oo dhan maba la isa siinayo laakiin annagu ka badan in kastoon rabnay misna dawladdu waa dawladayadii madaxweynuhu waa wiilkayagii marka haday 30 nasiyaan iyo haday 50 nasiyaan boo isugu kaaya hal ahaan 8 Maarso annaga xushmad gooniya ayay nagu leedahay maalinta 8 Maarsana kii bukay sariir saarnaa ee haween aba taleefankaas hambaliya ka soo leeday marka waa maalin aan aad u qiimeeno oo qiimo leh oo meel kasto aan joognaba aan iska soo xiriirino 8 Maarso intaysan dhalanin ayaan waxaan sameynaa bisha Oktoobar aan bilownaa
yacni qaabkii aan wax ku qaban lahayn iyo dabaaldegeedii waana ku guuleysanay maanta jimcihii wuxuu ahaa gobolka banaadir maanta waatan wasiiradda yaa qabanaysa waa nimco ilaahay waana ku faraxsanay saasaad ku fahmaysaa haweenka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay isku xidhan yihiin